tiyo habeen hore dab khasaare badan geystay oo ka dhashay magaalo ganacsiyeedka degmadaasi Togwa Jaale isla markaasina ay ku shufbeeleen in ka badan 250 meheradooda meheradihii ganacsiga ee degmadaasi Togwa Jaale ayaa maamulka degmada Togwa Jaale uu hogaaminayay gudoomiyaha degmadaasi mudane Xaashi Maxamuud Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Togwa Jaale mudane Cabdilaahi Xasan Samaale ay tan iyo shalay toole gurmad la xad ugu jireen sidii ay u samata bixin lahaayeen dabkii khasaaraha badan geystay ee habeen hore ka dhashay magaalo ganacsiyeedka degmadaasi Togwa Jaale geesta kale xogayaha fulinta dawladda hoose mudane Cabdilaahi Xasan Samaale ayaa isagu saaka waxa uu olole balaaran ku qaaday isla markaasina uu ururinayay qashinkii ama hadhaagii ka dhashay dabkii habeen hore ka dhashay meheradaha ganacsiga ee degmadaasi Togwa Jaale haddaba xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Togwa Jaale oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa isagu waxa uu baaq dheer u diray ganacsatada reer Somaliland iyo dadka muxsiniinta isagoo ugu baaqay inay gargaar bini'aadanimo ay la soo gaaraan dadkii iyagu ku waxyeeloobay khasaarihii habeen hore halkaasi ka dhashay xogayaha fulinta dawladda hoose oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii maal ayay socotaa habeen hore ayay dhacday habeen hore saddexdii sidaan u bilownay shalay xalay halka waxa istaanbay ku ahaa saddex dandanisa iyo laba boodooda nooca biyaha qaada iyo 10 askari oo waardiyeynayay xalay habeen hore shalay iyo xalay iyo maanta oo arkaysaan saddexda maalmood waxaan ku jirnaa xaaladda badbaadinta magaalada si aanu dabku ilaa hadda dabkoon dhamaystirmin waqtiga arkaya cagabtu ku jirto imigaan gabagabeynayna hadii Allah noo idmo Ilaahay qadaro biidnilaahi kariim waxa Ilaahay ka baryeena in inta inaga ekaado hawl badan oo la xadlaa meesha ka dhacday tirada sugan ee ilaa hadda aan haynaa liiska waa konton meheradood oo ganacsato ah ayaa ku waayay hanti wixii taalay ay ku baaba'een waxaan Ilaahay uga baryeynaa in Ilaahay ka caymo oo Ilaahay qasnadiisa uu ka kaalmeeyo ayaan Ilaahay uga baryeynaa ummadda kalena waxaan leenahay dadku istaanbay waxaan uga faa'iideysanaynaa dadku istaanbay ha ahaadaan gaadiidka istaanbay bay diin damiska degmadu 990 ayaa lagu soo dhufanaya markaad xaaladda aragtaan ciidanku waa idin diyaar isaguna maamulka degmadu guud ahaan isaguna waa istaanbay waxaan leeyahay dadku hal diyaar ha loo ahaado goor walba nabad lama wada helayo waadiga arkaya oo to aynaan ku xisaabtamin oo aafa Ilaahay xagga Allah xukun Allah inagu dhacay qadar Ilaahay baa yimid Ilaahay baan ka baryanaa in Ilaahay dadka ka caymo oo ka kaalmeeyo xaaladii wali waa tamaanta afar caanamaal bay nagu maraysaa sidaan dabka u baqtiin lahayn waxaana sababtu ay ahayd raashinkii daqiiqdii bacaha bacmiikada raashinka saliidaha waxa soo rasaysan oo isku wada dul go'ay oo rasa ka sii hoosayso ayaa dabkii oo hoos jira ayaa marka ka dambaysa ayaa saacadii walba waxaad arkaysaa olol meel ka soo baxaya sidaa daraadeed baad labada gaari ee aad arkaysaa istaanbayda imika ku halkan ee dandamiska iyo shaqaalaha oo gaari walba 10 inay saaran yihiin iyo booliiska oo iyaguna 10 inay istaanbay halkan ku yihiin ayaa afarta caanamaalba heegan ku halkan Ilaahay ka jaaisiyo caafimaad khayr qaban Allah siiyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa in inta uu inaga ekaado balaayo inta way ka badan tahay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay intaas naga soo khatimo dadkii ku waxyeeloobay hantida kaga baabaaday in Ilaahay ka jicsimo dadkana waxaan ku ogeysiinaynaa in haddii alla yiraaho ka maamul ahaan in hawlo fara badan oo jidad banayna iyo aan gali doono oo wadooyinka dadweynuhu ha u diyaar garoobaan wada banaynta ganacsatada waxaan ka codsanaynaa in meheradaha yaryar ee meheradaha ka hor samaysan nin waliba wixii ka yaala uu ka urursado oo aan qaadaynaa ololahaas oo wadooyinka ku nadiifin doono ku banaynayno taasi way naga go'an tahay marka dadka ganacsatada iyo dadweynaha intiisa kale inta ka manaafacadsataba alaabtooda ka urursadaan wax inagoo ka hortagayna xaaladaha jira waxa kale oo uga faa'iideynaynaa shirkadaha dabka ee laydharka Telesom iyo Sunpower waxaan maamulkooda ka codsanaynaa inay iyaguna heegan buuxa galaan dabka laydhka habeenkiina xilli u sameeyaan la wada ogyahay la baqtiyo oo dadka ay u sameeyaan nidaam maamul oo dabka lagu maamulo lagu kantaroolo haday xarig tahay haday qori la taagayo tahay iyo haday guri la gelinayo tahayba shirkadaha aad waxaan uga codsanaynaa inay xafidaan oo ay ka taxadiraan
sidii dadkaasi dabka ay uga badbaadin lahayd bulshadooda waxaan leenahay hal la diyaar garoobo dad iyo maamul iyo booliis iyo dandamis cid kasta bulshada inteeda kalaamaheega kala duwan diyaar ha la ahaado nin walbana habeenkiina guryaha laydhka la iska baktiyo guri walba kolka la seexanayo waa in laydhka la iska baktiyo waa diiniyan in la iska baktiyo laydhka Khadar Cabdi Cabdilaahi shabakada caalamiga Oodweyne News degmada Togwa Jaale